barakaatu isku soo naqasha labaad waxaan rajaynaa dhammaantiin bayna wada fiicantiin haddaba maanta waxaani wadaa qase aad iyo aad u xiiso badan qasadaas intaynu bilaabin waxaynu rabnaa inaynu ku salino nabigeena calayhi salaatu wasalaam calayhi afdal salaatu wasalaam allahuma salli wasalam calaa nabiyina maxamed haddaba intaynu qasada haddaynu sidan ku bilaabnaysaa waxaa jirtay nin magaceeda la yidhahdo caysha markii da-deedu marayso 7 sano ay waxaa dhacday labadeeda waalid waxay ku dhinteen shir gaadhi deed waxaa dhacday waxaa kafaalo qaaday oo soo koriyey habiyarteed dadta habiyarteed maasha allah waxay lu dhaqmi jirtay inay inanteedu kala tahay wax kasta u baahantay garab taagneed dhankii diinta way bartay dhan kasta ay u baahataba way garab istaagi jirtay waxyaalo kastana way bari jirtay oo fiican sida inanteedu kale ay lu dhaqmi jirtay habiyarteed waxay lahayd laba bidii inan si fiican bay maasha allah isku jeclaayeen inanka weyn aad buu jeclaa wuxuu ka dhigi jiray inuu walaashiisa kala tahay caasha dadta maalmaha kamid markay da-deedu marso 16 sano habiyarteed waxay yimaada xaqi dhimata caasha way naaxday aad bay oyday cunto ma cuni jirin kadib waxay bilowday waxaa caasha degdeg ku noqotay inay qasab ku noqotay inay degto gurigeeda adeerkeed caasha deeta waxay usoo guurtay oo nolosheeda kasii bilaawtay guriga adeerkeed bulshadeeda ku dadaalisay caasha waxay ahayd inan aad u fiican dhanka diinta dhan kastaba ka fiican haddaba markay jaamacadda sanadkii afraad mariso muddo 5 sano jaamacadda la dhiganayay waa la dhameynayay markii sanadkii u dambeeyay ay sanad ku harsan tahay ayaa waxaa dhacday adeerkeeda waxaa u yimaaday inankay habeertay dhashay waxaa u weydiistay inuu guursado caasha maadaama ay dalalka carabtu ay caan ka tahay amaba caado u tahay inay qoyska dhexdoodu ay iska dhex guursadaan haddaba odagii waa u diiday waxaana ku dhahay ma ku siinayo odagii wuxuu u tagay adeerkeeda caasha wuxuu ku yidhaahday inankii habeertaa dhashay wuxuu adigu kaa weydiistay adigu raali ma ka tahay caasha waxay tiraahday anigu raali baan ka nahay waana hubaa caashana aad bay u jecleed saa daraadeed odagii laakiin kuma yeelin wuxuu ku dhahay ninka fiican oo lacag haysta ayaan ku guurinayaa caasha hadalkii adeerkeed bay maqashay laakiin ma yeelin in ninka lala guriyo waxbarashadeeda bay iska sii wadatay sanadkii u dambeeyay jaamacadda magamarso haddana mar labaad waxaa u imaaday inankii habeerteed ay dhashay wuxuu weydiistay adeerkeed inuu caasha u siiyo laakiin markuu weydiistay mar labaad inuu caasha guursado ugu dambeyntii odagii wuu waafaqay oo wuu yeelay deet wuxuu dhahay waa caadi waad guursan kartaa markuu eegay sababo badan oo uu arkay caasha inay isaga mooyaane aanay cid kale ay rabin isna sidoo kale uu ka go-an tahay kadib odagii wuu iska yeelay deet waxaa dhacday maasha allah way isguursadeen jaamacaddiina way dhamaystay caasha deet waxaa dhacday 2 sano marka la joogay ayaa waxaa dhacday caasha cunuga caloosha ku qaatay deeto maalmaha kamid iyo caasha iska faraxsan tahay nolol farxad la iskaga jirto iska faraxsan tahay ayaa waxaa dhacday adeerkeeda waxay maaday gabadh ay saaxiib ahaayeen habeerteedii dhimatay kadib waxay dhahday caasha ii sheeg adeerkaaban rabaa muu joogaa deet wuxuu ku tiri ha wuu joogaa habar yar soo soco deet waxay wada hadleen odagii way is arkeen saacado dhan bilowda hadlayay deet gabadha way tagtay waa maalintii caasha ay farxadeedu bedelantay yacni wax aan ka filin ay ku dhacday kadib odagii wuxuu yeedhay caasha deet wuxuu ku dhahay waxaan rabaa inaan ku sheego arrintaasna waxa weeyaan inaad Faysal ninkeeda xorrin jiray Faysal inaad si degdeg ugu dhaqsaha badan aad isku furtaan caasha wuu qaado weeday laakiin adeerkeed nin kulul bahaa hadaladiisana dhacdhacmi lahayn kadib waxay bilowday inay naxdo oo ka baxdo ay qolkaas ka soo xirtay oydo subaxna markii dambe haddana uu ku celiyo wuxuu ku dhahay arrintii kama soo fikirin hadda wuxuu weyn arrintii xukuda sababta isku furanaya waa maxay adeer ma haddiina wax jirin waa maxay ma la iska furayo qofka dad waxay ku yidhahdeen sabab uu sheegay waxa ka yaabisay waxa uu sheegay ay tahay waxay ahayd Faysal yahay walaalkeed caasha way u qaadan weyday laakiin waxa qasab noqotay inay hadalkii qaadato ugu dambeyntii markuu ku celceliyo dhowr oo u sheegay sidii tahay deeto markay u sheegay sababta waa maxay aan walaal ku noqon wuxuu ku dhahay markaad yareedeen oo caruurta heedeen naas bas wada cabteen haddii muslimiin ahayna ciyaalka markii yiri haddii naaska wada cabaan waa walaalo sadeed ayaa isku fursan caasha hadalkii way qaadan weyday laakiin ugu dambeyntii waxay noqotay inay qaadato waxay bilowday inay u sheegto Faysal oo ay ku tiraado inay soo degdeg isku furnaa
kadibna isna wuu qaadan waayey dhulkii waa la wareeray kadib waxay bilowday inay u sheegto ku tiraado berigan yareen naas wada cabnay saa daraateed waa xaaraan maadaama ay xaaraan tahay in muslim nahay inay laba walaalo is qabaan markaas waa inaynu si degdeg ugu dhaqsaa badan isku furnaa haddaba Caaisha waxay tiraaday way fikirtay yacni way murugotay waxay tiraaday talo aniga ma waxaa la ii qoray nolosheeda inaan naxsanaado uun markasta leh laakiinse waxay ku calool adagtay inay samarto ay isfuraan ay guriga adeerkeed ku noqoto inkuna sidii bay ku kala tageen Caashina guriga adeerkeed bay iskaga noolaatay wax kasta Ilaahay kugu qadaro waa inaad ku sabartaa waayo sabar kasta leh wax ka dambeeya war farxad leh markaas hadduu wax kugu dhacaan uu qadar imaado waxa lagaaga baahayay inaanad oran maxay u dhaceen laakiin waxa lagaaga baahayay inaad ku sabartid waayo sabar kasta leh wax ka dambeeya war farxad leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh